qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag iyo ardaydii imtixaanaadka shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka kaalmaha sare ka gashay ayaa saaka waxa ay si wada jir ah hambalyo ugu direen wasaaradda waxbarashada Somaliland taasoo ay sheegeen inay si cadaalad ah u qaybisay deeqdii waxbarasho ee Somaliland ka heshay dalka Itoobiya dhinaca kalena waxay hadalla hambalyo iyo duca xambaarsan isugu dareen 11 arday ee ka tagay degmada Garadag ee ku guuleystay scholarship-ka dhinaca kalena waxay digniin adag u direen maamulka iyo dhalinyarada degmada Ceerigaabo kuwaas oo sheegay in wasaaradda waxbarashada Somaliland deeqihii waxbarasho ay ka qadisay gobolka Sanaag taasina ay tahay mid waxba kama jiraan wasaaraduna u qaybisay si cadaalad ah sidoo kalena waxay sheegeen inaan gobolka Sanaag ahayn degmada Ceerigaabo oo kaliya si ay jiraan degmooyin badan oo ardaydeedu ku guuleysatay waxaan u qabanaynaa inuu kaliifay arrimo ayaamahanba ka soo noqnoqonayay gobolka Sanaag oo dad intay saxaafadda ay soo taagaan yiraahdaan ardadii heshay scholarship-ka Itoobiya ee wasaaradda waxbarashadu sida saxda ah u qaybisay cadaalad darra lagu sameeyay Ceerigaabo waa laga qadiyay ay hadallada midiyaha mariyaan waxaan u leenahay saaxiibayaal Sanaag mala Ceerigaabo gudaheeda qura taqaaniine Garadag Sanaag bay ka tirsan tahay waa gobolka Sanaag waa degmada laga soo galo Sanaag marka laga yimaado Togdheer wax badan oo Garadag ay saami ku lahayd ama badanna oo ay qayb ku lahayd xaqra ku lahaydna gobolku in badan buu qaatay waxa ogaataan inay Garadag ka mid tahay gobolka Sanaag arrintaasuna ay xaq u dhacday wasaaradda xaqashada ka daaya annagana nafidmeynina naga daaya gobolka Sanaag Garadag kuma jirtadan ilaa Garadag baa qaadatay macnaheedu waxa weeye Garadag Sanaag kama tirsana waxa arrintaas runtii arrin aad aan uga xunnahay weeye waa arrin meel ka dhaca Sanaag waa isku mid Garadagna Sanaag bay ka mid tahay arrintaas oo arrin si caadi ah isaga dhacday bay ahayd annaga ardadii imtixaanka ku guuleysay tagtay kuwii ka soo noqdayna way joogaan waxaan leenahay arrintaas arrin saxda u fikira ka daaya midiyahan lagu soo celcelinayo maagista wasaaradda iyo Garadag baa Sanaag baa wax laga qadiyay xasuusta oo arrin maalmahanba ku soo noqonaysa saxaafadda ama baraha bulshada arrintaas oo ah scholarship-kii Itoobiya ee ay dhowrkii boqol ay Somaliland heshay waxa loo qaybiyay si cadaalad darra ay oranayaan dadka qaar arrinkaas aan doonaynaa in yar ka muujino sida uu sheegay xildhibaankii ugu horreeyay aniga waa xildhibaan Cali Jaamac oo ay nala joogaan ardaydii ka soo noqotay ee weeyday ama magaraysa nasiibkooda aanu siinay waxa fiican dadka in aqliga inta wanaagsan sareeyo ee aan inta xun sareeyo kolba qofku in xun waa yeelanaya marka waxaan leenahay reer Ceerigaabo ortodayna afka gobolka ku hadlaan bay ahayd inay ku hadlaan ma ahayn afka Ceerigaabo gudaheeda qura hadii gobolka Sanaag wax ka maqan yahay oo ay Ceerigaabo gudaheeda wax yar lagu qaato taas ay ku qancayaan hadii waxay ku xisaabtamayaan magaalada gudaheeda gobolka Sanaag ama Ceerigaabo gobolka Sanaag waxa loo qaybiyaa marka nidaamka wax qaybsiga saddex baa loo qaybiyaa saddexda mid baan ka nahay marka ay ka hadlaan arrinka magaraysa sidan uu dhacay oo waanu arkaynay si cadaalad ah wixii ka qayb galay ay ku guuleysteen ninkii aan tagin waa iskii wixii ka qayb galay ayaa waxna heleen waxna soo noqdeen markay arrimaha dood ka keenayaan waxay u muuqataa inaanay aw yaqaanin Garadag inay ka tirsan tahay gobolka kale Garadag hadii ay nasiibkeeda ku heshay dhowr arday oo horena aanu la hadli jirin wixii gobolka gala ee Garadag ay ka maqan tahay oran jirnay shaarkii oo leedin weeyahay oo gobolka idin qaatay maanta waxay muujinaysaa wixii dambe inaynu ku xisaabtano saddex meeloodkii aan idin kana yeeri doonin waayo waxa idinku soo fagteen hadalladan ay hadda soo qaadanayaan ay indoneena kaadi anigu magacayga Khadran Ducale waxaan ka mid ahaa ardaydii scholarka oo tartamaysay ruuxantii nasiib uma yeelan inaan scholarka helo waan ka habsaamay waayo waxa helay ardaydii ila midka ahaa ee degmada ka midka ahaa ee gobol Sanaag ka mid ahaa ma ahan mid grade waxba kuma kala helin balse hadan waxay iga heleen wax xarayntii ay xaraysteen iyo sidii ugu horeeyeen waxaana si fiican mid cadaalad ah u dhacday mid aan musuqmaasuq ku jirin mid si sax ah u dhacday run ahaantii waan hambalyeynaya kama xumi waan ku faraxsanahay ardayda saaxiibaday ah ee helay scholarka waxaana leeyahay hambalyo midda kale waxaan u sheegayaa ardaydan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo
waxaa jirta arday badan oo saaxiibada oo ka hadla midiyaha kaga hadlayay gobol Sanaag haddii aan nahay lama siin imtixaana saamiga aan lahayn waxaan leeyahay saaxiib yar weyn la siiyay maanta degmada Garadag ayaa heshay run ahaantii horena weynu heli jirnay oo gobol Sanaag way heli jireen ma waxaa heli jirtay degmada Ceergaabo iyo kale ay heli jirtay gaar ahaan Garadag kama ay xumaan jirin waqtigaas marka ay hesho salaamay marka xigta Ilaahay baa mahad iska leh halkan waxaan ka cadeynayaa ardayley heshay scholarship horta mid Somaliland bixisay mid Garadag la siiyay ma ahan Somaliland dhan way heshay haddii heshay waxa scholarship-kaasi wuxuu ahaa mid lagu heliyay nasiib iyo aqoon waxaan ku arday waliba xeeladiisa uu ku helay waxaana halkan ardayda haddaan raagaraayaan halkan aan ka tagnay xilxileysanay CV-yada ninba waqtigiisa ayuu xileysanay haduu xeleysay ardayna waa helay ardayna way dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin horta gobolka 12 buu ahaa 10 ay garaadaysa 10 ka ay heshaan wax kuma helin Soomaaliya wax kale cadaalad bay ku heshay sidoo ay ku xareysatay waxaan u sheegay gobolka Sanaag intay Ceergaabo iska joogay ardayda aan soo xareysan inay maanta ka calaacalaam ay dhahaan Garadag waa la siiyay Garadag waa soo qaad Garadag alxamdulillaah rabbil caalamiin markii hore gobolka ugu sareeyay inta scholarship ka qaadan jirtay haddana iyada nasiib heshay kana ma ahan mid lagu bixinay kala sare laakiin waxa nasiib ardaydu nasiib أنا وحنا مقاعد عيدروس عبد الله سيدي هاي deeqaha waxbarasho dhanka kale maayirka degmada Garadag ana xafiiskiisa ku booqanaya isaguna waxa uu shaaciyay in ardaydii ka tagtay degmada Garadag hore u boqoshay balse maamulka iyo waalidiintu ay u dhigeen xaflad ay ku dhiirigelinayaan waxana haddaan ka jawaabo su'aasha aad weydiiseen ku saabsan magaranaysa ardaydii deeqda waxbarasho ka heshay dalka Itoobiya magaranaysa ugu sameeyay xafladda Itoobiya magaalada Garadag inay joogeen iyo kale maalintii xafladda la qabanayay waxa weeye ardaydaas horta ma joogin waxaan u sameeynay ardayda moral support oo sameeynay iyagoo maqan oo xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradii jooga oo aan degmadii joogin ayaan u sameeynay inaan ku taageerno yaani chance-ka ay heleen waxbarashada maana fi rutiin arday kale oo reer Sanaagi ay ka daba hadasho oo ka xumaato way waxa weeye maadaama gobolno isku xiran aan nahay oo degmooyin fara badan leh oo iskuulo kala duwan leh haddii ay ardaydu chance kale hesho grade-ka ku kala hesho oo loo qorsheeyo hadduu ardayga meel jooga waxa Sanaag u helo oo uu markaa ku metelo waxa weeye waan ugu hambalyeynaa kuna diidmayno horena way u jirtay oo deeqaha waxbarashada gobolka Sanaag la siiyo iyadoo aan Garadag helin baa la siin jiray Ceergaabo oo inta helaan baan u helin jirnay sidoo kale qaar baa Garadag heli jirtay ilmaha jirin hadeer waxaan arrinta keenaya waa arrin ma garanaysaa ku wanaagsan milgaha waliba waxbarashada waxa weeye wasiirka aad iyo aad baan u hambalyeynaa oo wasiirku ugu horeeyay si hufan runtii inta uu shaqadiisii si fiican u fushiday soo helay scholarship ardaydu u doonay isla markiiba tabaabusheeyay waqti iyo chance la siiyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka shaqada ay qabteen ardaydii hore aad joogto oo run weeyo waxa u jirta sanadadii hore waa la heli jiray scholarship haddana way dhici jireen oo waxa weeye waqtigu uu ka dhici jiray laakiin waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa wasiir Faratoon sida ma garanaysaa uu dedejiyay uu ma garanaysaa markii arday aan chance ugu ridinay arday wala jaan qaaday wasiirkan intaas aan gaarsiinaa inuu shaqadiisa ma garanaysaa ku dhiirigelino gobolkaygana waxaan leenahay aynu walaalayaal wixii la helo aynu fahanayno ma haddii arday Garadag baa ardaydii tagtay ayaa soo weydiiyay daladiisi kamid ahaa Farxaajo Cabdi Nuur telefishinka caalamka Home Cable TV degmada Garadag